كن أسلم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود هامبا دقيستيال هالكني وراديو عدكا دليرة الصومالية نور تناني أو تضبط كستات كدقيستان موجودة الأركيد يهاي بقول لي بيعسدح مالنمada hadda waxaa qadka telefoonka iigu jira waan wareysi la yeelanayaa Asad Maxamuud Warsame xog weyn oo ah macallin ka mid ah macallimiinta dalka Finland wax ka dhiga. Asad waxaad nooga warantaa waxaad rabtaa inaad hirgeliso macad la yiraahdo Simad oo aad ugu talagashay inaad uga faa'iideyso dadka ama ardayda dhalinyarada ah ee wadanka Soomaaliyeed ee Finland bal qorshaha aad ugu talagashay dadka maxay yihiin? Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akhi Maxamed Bashir oo Maxamed oo ku salaamaya dhageystayaasha ku sugan Finland iyo banaankeedana waan salaamaya sidoo kale su'aasha ay weydiisay ahayd waxbarashadan aan qorsheynayno waxa ay tahay iyo ciday ku abaaran tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan furno madaraso weyn oo waxyaabo badan oo muddo 20 sano wadankan deganaa aan in badan micnaha firaaqa ka ahayd oo banaanayd intaas 20 sanana war baan u haynay oo waxa weeye dhibaatooyinkii inay sii bataan mooyee wax soo reynaya malaha asaasna waxa waxay tahay marka ummad kasta ee dhibaato qabto yani waxa uun u kaca waa ummad ku iyaga dhaamay marka kuwa kacaya die qaarkood ujeedadoodu tahay xoolo iyo wax raadin waa arrin gaar ah oo inta badan laakiin focuskeenu wuxuu saaran yahay waxay tahay ubadka Soomaaliyeed oo runtii meelaha badan dalalka kale ee Soomaalidu degan tahay ay aad nooga horeeyaan xagga aan barnaamijkan wadno marka loo fiiriyo ayaa waxa moodaa kuwa Finland ku dhaqan in badan ay meesha ka baxday waxa weeye ilmaha Soomaalidu ma gaaraan maxay ahayd wixii dugsi sare waxaan ilaa galaaska 9aad wax ka baxa waxa weeye dhif naadir weey arday aad u tiro yar weey waxa sidoo kale u gudba dugsiga sare inta dugsiga sare markay ka baxdo waxbarashadooda sii wata iyaduna dhif naadir weey intii dad roorona ay waaweyn oo inagoo kala wadanka soo galay oo waxbarashada jaamacadeed raba sidoo kale waxbarashadii gala ama hore u sii wata aad bay u adkaatay iyaduna oo waxa weeye aad bay u hooseysaa wax master iyo gaara aad bay u hooseysaa PhD iyo levelada kalena way ka sii daran tahayba marka in badan anaga rag kala baaritaan badan ku sameynay asbaabaha sababay kara waxyaabahaas oo dhan waxa marka soo baxday in loo baahan yahay xarun la furo xaruntaas oo kulmin karta waxaan hadda aan ka hadlay oo dhan oo mashaakilka waxbarasheed laga soo bilaabay ilmihii dugsiga hoose dhexe ilaa iyo heer jaamacadeed oo darajada sare ilaa doctorate waxaana inta badan keenay waxay tahay baahi loo baahan yahay oo kabi lahayd suuragelin lahayn in dadkaas ay hore u sii socdaan oo ah taakulaynta waxbarashada laga siiyo marka maxadka iyagu ujeedadan u sameynayna wuxuu yahay waa maxal lagu baran doono luqadda Ingiriiska luqadda Finishka hadii la yiraahdo luqadda Carabiga sidoo kale maadooyinka xisaabaha iyo physics-ka iyo biology iyo chemistry waxa science la isku yiraahdo oo ka soo bilow dugsiga hoose dhexe iyadu aan level u sameynay ilaa galaas hebelkaas sidoo kale dadka dugsiyada sare dhigto kale maadooyinka ku adkaadaan iyaguna aan u sameeyno barnaamijyadaas oo kale kuwa jaamacadaha raba inay galaan oo iyagoo dugsiga sare dhameeyay wadanka soo galay marka raba inay galaan jaamacado iyaguna inay maadooyinka jaamacadaha ku gali lahaayeen aan u diyaarino oo micnaha marka waa tababar guud oo standardka wadankan waafaqsan maxay ahayd qofkan u fududeyn karta waxa aan ku nasiib badanahay Finland hadaan nahay waxay tahay dolalkan kale Scandinavianka malaha maxadiyo ama jaamacado luqadda Ingiriiska aad ku wadan karto professionka arabtid ama xirfadda arabtid inaad dhigatid inagu waxaan halkan ku haysanaa haday jaamacadda medical tahay haday engineering tahay haday computer tahay haday environment tahay inaad heli kartid iyadoo English aad ku dhigan kartid marka dadka soo gala ha noqoto dadka raba luqadii Finishka ama ku adkaatay raba inay waxbarashada English ku wataan inaan ka saacidno Englishkii iyo maadadii ay imtixaanka ku gali lahaayeen waa gartay asadow si aan kaaga dhaxgalo wareysiga waxaan isleeyahay runtii waa macad aad faa'iido ugu leh dadka Soomaaliyeed oo dalka Finland ku nool waliba gaar ahaan ciyaalka yaryar ee u baahan in laga caawiyo
maadooyinka hadda soo sheegtay marka goorma laga yaabaa inaad hergelisaan macadkaas xaggeese xarun idin ah oo aad jeceshahay oo aad dadka ku wargelinaysa hadda ku dhegeysan doona insha allah haddii ilaahay subxaana watacaala yidhaahdo waxaan xarunta ugu weyn ka dhigi doonaa Helsinki inta badan waxaa weeye barnaamij intaasoo kale la eg marka la furayo ma sahlana waa inaan heshaa dad yani adig kula qalbi ah oo maadooyinkaan sheegaya dhigi kara oo xisaabihii iyo maadooyinkii kale physics-ka wadi kara oo ujeedkooda uusan ahayn yani waxyaabo kale aan ka ahayn inaan bulshadan la gacan qabto wixii dee kusoo baxa oo ilaahay ku siiyo waa gaar marka xarunta ugu weyn aan rabno inaan ka asaasno waa Helsinki noqon doontaa Helsinki markay cagaha ku istaagto oo miisaano haddii ilaahay yiraahdo waxaan markaa xarumo kala rabnaa oo macallimiin iyaduna aan u samayn doonaa magaalooyin ku hareersan Helsinki oo sida Esba iyo Fanta maadaama bulsho badan oo Soomaaliya halkaa degan yihiin laakiin ugu horreyn hadda waxaan xarun ka dhigi doonaa insha Allah Helsinki ama waqtiga aan furi doono waxaa hadda socda qabanqaabadii iyo diyaargarowgii iyo goobtii laftigeedii laga furi lahaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo adigu inta Helsinki centerkeeda u dhow ka bilow Sornainen ilaa iyo wixii magaalada dhinacaas looga baxo inaan agagaarkaas ka furno haddii ilaahay yiraahdo marka meeshii maqcadii la degi lahaa iyo waxaas haddii ilaahay yiraahdo ayay taamkeena ku xiran tahay marka iyadiiba hadda qorshooyin oo socdaa laakiin dhawaan waan rajaynaynaa inay soo afjaranto ma ka mid tahay maadooyinka aad degaysaan qur-aanka iyo tarbiyadda ama yani maadaama uu yahay macadkiinu macad yani ka duwan meelaha kale ee hadda dalka Finland wax looga barto marka ma laga heli karaa quraanka oo kaleeto iyo xifdinta quraanka iyo tarbiyadda ilmaha si macnaha ay arrimahaas oo dhan isu kaashadaan wallahi akhi Maxamed waxa weeye su'aal fiican weeye waxaan أنا وقف هيدي سنة جانس كان بركي برنامج كاد بباحد بلارين هاي وحونا إن شاء الله تعالى وحول بنا وحن آمي سنة هي إني تها وحلقة بنكره يعني مجرى أدونك وحلقة بنكرين هداد حتى وحي أدو أنت جوكتو هذا لما يستري كرين وحداد بلوضو ركلا كسي وذكر ماشي مركا وجد كين وحوي هدي لا يرادو وحي مادي أهو أنت هذا هركوش شيء إيو أرنت اللباد وقيبت اللباد وقوم مهم سنة تربية دينتا مثلا أي كم هاي قرآن كي حفظيسي تربية أخلاق دا قفك المها إن لصوصار يسقو يعني مبدئيا دينتي عقيدة دي سكدسا وايو waxaan tusaale u aragnay مثلا magaalooyin kan hadda Minneapolis oo kale Mareykanka iyo UK oo kale waxa soo baxday tajribaadkii la sameeyay oo tarbiyada islaamka iyo quraanka carruurta la barayay in aan hadda loo baahnaan in carabtii la aadi jiray la aado waayo waxa la ogaaday in hadda dugsiga Abu Bakr Sadiq oo kale masaajidka ku yaala Minneapolis sanad walba waxa ka soo baxa oo qalin jabiyo 70 ilaa iyo 100 wax kor u dhaafay arday oo xaflad weyn loo qabto ilmahaasi siday tahfiid quraanku barteen iyo luqadda carabiga iyo siday يعني ووح أصلي هذه community حاجة كونوا الأيسامين كران إنجونا وانسامين كرنا وح maybe لقيا بصورسي جاي هايستان يكوا أنجوا هايسنو إني كل دوانان كرنا كوا وح لقى شقين كره هذه والدين تو أي كجرب استعجان واي واحد كبا يسوع صار يسوع أبد كودي مركا وكمد وأنا قيبت وبعد وقع إن برنامج كاس ديني جاه أو تربية يسوع سوته معلمين وطببرن أو برنامج كاسنا هذه رهي هذا أنا قلت لقلني وأنا هينا waxa kaloo maxamedow meeshu ay dabooli doontaa waxay tahay maanta dadka Soomaalida wax baranaya way wareereen yani qof walba meel iskuul ka raadsada ma yaqaano wuxuu dalbada ma yaqaano jahwareer baa ku dhacay nin walba waxa laga yaabaa kan ugu fudud oo sanad 2 sano 3 sano iskuul la noqdo marka afraasoo khaati taagan inuu meel isku tuura waa ruuxa saaxiibkii ama dariskiisa wuxuu barto oo iska gala yani ruuxa computer dhigtani baa iska dabagaleeyo ama iskuulkaas kale soo raadi marka waxa aakhirkii soo baxday waxa la wixii gabdha ahaayo kale inay wada lahayootay wada galaan oo kale oo taasi aysan ka imaan tababar iyo soo diyaar garow qofka ardayga uu u soo sameeyo gale ay ka ahayd kaliya يعني قف خاتي تاجنا أو سكول أنتي كود على ماشي سكتورة أما هبلاية بوحى قابته شقدا سو هبلاية سمين لكن برنامج كده سمين إنه وحى كم ده وحلي يرهدو إن قيب لطشي إن سمينه وحاجة واحد برشة
إن أرضي over قرينه أما سينه إن أنت اختيار سكول ودن كجرت قبل إيو جذهب إن وحى كلا دجان إن إيو الدلب كلفتي سكول كلا سميني إن الدلب كأوكي إنه أو لبوا حنا أو ماش كذا سمينه مركزية يفوضات أرضي والبا إن كساعد إنه ما ددو برانيو هدي مثلا وجعليها وكفي عينه برتو إن nursing أما هدي كلا civil engineering أو microbiology إن حتى لفتي هذه وحي وبعنا أو قلبينا سيدا ساينسي إنه سود دياريو إن حتى ما حد كلفتي سوق بحين دونه أو جلاسيدا أو كقيب جري دونه كدمنا ومركز سكول كي وربي وفوضان دونه مركز وهير عن رمنا إنان يعني هدو عن ميزان إسلاك صارنا أنت جش engineering أنت جش arts كا economic and business كا أنت جش محاهد political science إن ميزامي إن أفر سنة شن سنة كده مركز سوق الإنجبيان هدو إيش النقون إن 10 سنة كسته إنه يصاب حضو بقولالو أردا أو قبله والله هو تيا يبقولالو كليه أو كمبيوتر بس أنت فيلدي كلا أما ملها كلا لبرتنا أي بنانتهاي مركا إن شاء الله نظام نوع سو كلا بايدنا كمذا مركا أنت لكن وح سورة جرينك الإله سبحانه وتعالى إنه ينفذ ذي وحول بإله أرنجز وجار إنه نساسا قرشيننا إن شاء الله. أسدو طبعا وحتى هاي معلن سوماليز ولي بدنا على إنجليز كعادي ضد بدن وضن كان فيلم كنا سوق بعيه وحبرشة عاصف في دي مركا أقوم في عم بدول هذا هاي دينا وحبرشة يسيد ضدك حلوبرو dad badan oo ku qaracsan runtii waan maqlay ama waan arkayba marka maxaad ugu baaqaysaa waalidiinta ku dhageysanaya raadiyo codka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Finland ka dhageysanaya fursadan aad macnaha hayso maxaad ugu baaqaysaa adigoo soo koobaya warbixintii iyo macnaha barnaamijka aan maanta ugu talagalnay waalidiinta Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa wallahi insha Allah Maxamed maadaama qodobka ugu dambeeyo uu yahay waxaan marka hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga mahadnaqaya yani wanaaga Soomaalida oo qabatid iyo isogeysiintii isku xirka aad barnaamijyadaas aad ka shaqeynaysid Ilaahayna kula garab galo qof walbana meeshuu hayo waa lagu saacidaa waana loogu duceeyaa waa xil aad u culus ama su'aasha ahayd dadka maxaan u baaqayaa dadka Soomaalida waxaa jira haddii Ilaahay yiraahdo aan oran karo waxbarashadu yani ma aha wax سهلة وحاول وحباهن جهدي أقبل سمر وإنتاسو إسكاشدة مركا عد والبا وحانو ملاينا يا قف إنو علمه سمال قليو أما يساق الشخصية نفس دهانتي سمال قليو ووح يعني آياتين كمستقبل يالان دونا واقي سومالي عندي قاي لغة إنجليزكا وحان حسوتا ضد باين الورق إنجليزكا فايديست مركا حير هذين مركان يوروب تقنو إيو ميلاها سبان إنجليز خفي عنو براندونا إلا يالآن كان وانا ركادتك يوليلو ترجماي مركا هذا برنامج إنجليز وكوين يهي waxyaabo badan baa la dhigayaa marka waxaan rajayn lahaa reer kasta say u dhan yihiin ama caruurtooda ha noqdaan ama waalidku ha noqdaan qoysashadan diintu aan meelna kaga lahayn qof walba xataa waalidku leeyahay anigu da'dan waxma kuma baran kariyo waxa wax ka jira ma laha yani ruux walbaba يعني وحو بران كرا إلا وهل كلمة سوف فايدسته روح والبنا ومادام انتو قربا كنوريها وصفريا مركو حان ugu baaqi lahaa Soomaalida yar iyo weynba iyo waalidiinta maamulka caruurtooda gacanta ku haya inay u dooraan caruurtooda si aysan barrito ay u oran waalidkeen baa nala haray ama dad asaagooda iyagoo waaweyn loo turjumin inay wax bartaan oo hadda ismaal galiyaan haddii aadan maxadkayga soo gaari karin meelo badan oo wax lagu bartaa jira oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay wax dhigto marka uun qofku inuu san fariisan ha ka faa'iideysto meel uun hala galo lugta si micnaha mira dhal ay u timaado waayo community bulsho waxbarasho dadkeedu dhisan yahay wadanka wax way la qaybsan kartaa dalkii hadii loo noqdana wax way la qaybsan kartaa qoys ahaanna wuu ku faani karaa inuu cunugiisu maanta dhakhtar yahay luqad walba ku hadlo taasna wax la sameyn karo waxay dhahan wuxuu nin kale qaban karo nin kalena uu qaban karaa haddii kii finishka ha 5 luqad 6 luqad ku hadlo scientist uu yahay adna waad ka dhigi kartaa caruurtaada adiguna waa noqon kartaa intaasaan oranaha aad baad u mahadsan tahay Asad Maxamuud Warsame ayuu ahaa oo aan ka war gaaray intii saway aqooneed waa talaab hagaagsan eerkay waa markii ugu horeysay hal abuur lagu faaniyo guul baa
maray hawlo waa midda koortaale manhajkeeni habaabe kala haybta ahaa hadda waa la mideeyo waa mid noo hana qaade waa midaan hakranaynin waa mid iliyahooba uhuraya dadkiiso haliyey taariikh gala weeye ufanoo la ammaanay ufanoo la ammaanay ufanoo la ammaanay ufanoo la ammaanay ufanoo la ammaanay